بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن شاء الله cashirkaani insha allah waxaan kusoo gabagabay doonaa villadii labaad inoo socotay villadan insha allah kow waxaan qaadan doonaa freemiska daaqadahii qeybta hore aan ku qaadan mee qeybo kale inaan sameyno sidoo kalena sida 2D-ga aad PDF looga dhigo labadaasba waan ugu sii faa'iideysan doonaa insha allah kadibna renderka ayaan qeyb yar ka qaadan doonaa إن شاء الله عشر كحجنا إن شاء الله توصل حنقول دونا software كي نوجو project كي نوجو حجو طبقة أها أيان توصل بلعب دونا أوكي مركو حارة وقورنتي أنت إن سماه مرك elevation كان استعماله وحلاها هاي rotate gray أو control E ده قري جسور جيسو أسيقو توصل كده بنحاول هذا لا تاخذه لنا روحان مرينا وده سماه اوكي kadib waxaan noo dhahdaa fit saan u wada arko waa kana waxaa leeyahay marka morph waan ku sameyn kartaa waxyaalo badanaa lagu sameeyaa maanta waxaan isticmaalaynaa wax la yiraahdo daaqada waxaan u isticmaalaynaa laba shay slabna u isticmaalaynaa derbi kalena u isticmaalaynaa okay 2D aan kusoo noqonaa marka waxaan leeyahay wall email wall kaas waxaa igu sameysaa meesha ka soo kacay waxa ka soo kacda 0 ka soo kac ama waxa ka soo kacda -0.6 ka soo kac dhererkiisana waxa ka dhigtaa meter iyo 20 ku dar 2 meter iyo 20 Soomaa 2 meter 20.6 kaas ku dar marka 2 meter is dayton okay 2 meter iyo 3 meter toos buu gali 20 ka soo kor ugu sii kaco okay 20 kale xataa igu sii dar 3 mitir iyo 20 okay dhererkiisa iga dhig thicknesskiisa pointing kaas baha ahaado okay kadibna line kali ka dhig kadib waxaad ka qabataa geeskan ka soo qabarto ilaa asiga ku aadi oo point kanne inside ida intaas markaa sameysid kadib dhinacaha igu kala bax marka inta ka qabo 2 mitir 20 markuu yahay inta 20 senti igu baxo mitir ya 40 iga dhig sidaas oo kale xag 20 kale igu bax oo waxa ka dhigtaa mitir ya 60 okay intaas kadib waxa ay dhahdaa waxa u baahanahay open window aan u baahanahay oo daaqada bis ku aagayso empty window oo rectangle ka aha soo qaado waxa dhahdaa marka dhulka inta laga kacayo waxa ka dhigtaa 1 mitir si daaqada qaybteeda ugu hagaagto asirkiisana waxa ka dhigtaa mitir iyo 20 baliciisana waxa ka dhigtaa mitir iyo 20 okay intaas kadib waxa dhahdaa okay ku aadi marka okay soo fiican ugu aadi waa ka intaas marka ugu aadi sid kadib slab soo qaado slabka tookadan waxa dhahdaa dhulka waxaad ka soo kacdaa 2 mitir iyo 30 20 asigoo yahay 10 ka soo noqon doona okay intaas kadib asina waxa ka sii dhigtaa colorka white ka ayaan sii rabnaa kadib geeskana ka soo qaada rectangle asigoo ay la inta keena marka keena dib aan u dooranaa waxa leeyahay hore waxa u soo baxdaa 20 kala soo bax intan soo kale 20 kala soo bax okay 3D aan dhaho marka saan u arko waa ka marka soo baxaa inta okay intaas sameysay badi marka asiga ku dooran slabka waxa ku sii darsataa wallka kadib control shift d igg marka kan ka soo qaad kan toos iuge control shift d laakiin intaadan geegeysanin oo control z ina ii soo dhahdid wallka hadan wax ka bedeshid ka war marka hore wallka ina wax ka bedeshid macnaha colorkiisa ina hadda sii bedelatid inta hadhow aad bedel lahayd hadda baan sii bedelo oo colorkaas pinchiga ah iga dhig kadib waxa dhahdaa labadooda ii wada dooro control shift d dheh geeskan ka qaba xataa geeskaas ii dhig control shift d sidaas oo kale geeskan ka qaba sidaas oo kalena geeskaas ii dhig sidoo kale control shift m dheh tookadan okay intaas kadib waxa dhahdaa centerka ii qabo kan inta ku aadi waa kana kadibna isku aadi asiga kadib control shift d hadana
waxaan dhahdaa geeskaas ii saar. waxaan u baahanahay qaybta marka control shift m leedahay haddana oo waxaan raadinayaa geeskana istaagaysaa kadibna 45 degree ayaad usoo leexinaysaa marka. okay sidaas oo kale intan igu samee. sidoo kale maxaa u baahan tahay qolkan geeska soo jira control shift d ilaa jikada marka. okay kadib 3D aan dhaho waa kaa marka waxaa meesha soo baxay frame qurux badan soo maa waa kaa. aha waa kaa meesha maxay noqotay marka meel qurux badan soo maa waa kaa. marka ogow marka waxay u baahan yihiin wax kastaba oo qurux badan waxay u baahan yihiin in si fiican looga shaqeeyo. shaqo badan ay u baahan yihiin macnaha waa kaa. marka adiga aniga qaabka wax loo tilmaamaan ku tusay marka adiga laga rabaa marka wax badan inaad ka shaqeysid. okay aan ku noqdo 2D gayga kadib waxaan u baahanahay sidee PDF loogu dhigaa. PDF marka ka dhigayso marka hore waxaad tagaysaa qaybtan ay ku qoran tahay layout book kadib hoos u deg oo A4 dooro cabirka aad rabtid inaad sameysid horto kan ku dhameystiran yahay ilbaabada daaqada okay nooyaan dimension kan oo dhiman. dimensionka markaad rabtid inaad saartid marka laba shay waa laga saxaa. kow zeroyinka tirada badan qaybtan ay maanay option kadibna project preview kadibna dimension meeshan ay waxa ka dhigay 2 kadib okay leedahay. sidoo kale dimensionka asigaad klik siinaysaa kadib meeshan cabirkiisa intuu noqonay 3 ba ka dhigo si fiican kuugu muuqdo. qoraalka meesha qoraalka yahay tusaale kale black rasmi banaago dhig. sidoo kale kuwan kale kanoo kale asagana qoraalka inuu dhaxda ku qormo intaas bisna inuu bedel kadib noo saar marka waxaa dhahdaa geeskan kan macnaha hadii labada qolka isku qabanayso waa ka koraa ka soo qabanay macnaha. okay kadib okay leedahay banaanka u soo bixinay waa ka maxaa isna cabirkii oo dhameystiran geeskan ilaa geeskan geesana right click okay cabirkii guud waa ka asigana. okay intaas markaa sameysid kadib geeskan ka soo qabo waxaa leedahay qolkan derbiga sidoo kale derbigan kale sidoo kale derbigan kale sidoo kale derbigan kale sidaas oo kale derbigan geeska qaybta kor ka dhaaf marka right click open. okay qaybtaas maxaan ku soo tagnaa marka kaas ka soo bilaab kan ku xije kan laba xaba ka dhig sidaas oo kale laba kale kan laba kale kan laba kale intaas kadib waxaa dhahdaa right click okay noo dheh kadib waxaa dhahdaa waa ka. intaas kadib waxaan u baahannahay geeskan ilaa geeskan saan u cadeyno inta xabo oo yahay ha ka dheereen markan. okay jajaba soo galay control z inta ku soo noqo inta dooro. okay geeskan aan doortay waxaan leeyahay haddana geeskan kale ii dooro kadib right click okay okay 19.5 sidaas oo kale maxaan u baahannahay qaybtan intaas okay ku dheh kadibna dhaxdooda le ku sheeg bis ana kaas 3.5 ya karne 4.5 inoo yahay labadooda inay kala duwan yihiin meesha ku cadeysid. okay sidaas oo kale maxaad u baahan tahay geeskan ilaa geeskan oo kale inaad sheegtid labadan inta u dhaxayso inaad tilmaamtid si loo ogaado labada qayb waxay kala jiraan si toos ah loo sheegi karaa. okay qaybtan la soo saari karaa qaybtan la soo saari karaa wax kasta la soo saari karo marka adina waa ka tagaysaa. okay meerkii soo qaado inta aad rabtid inta lagu geeyo intaas aad doorana kadib control ayaa leeyahay wixii ii soo raaco dhan iska bixinaa marka. okay intaana u baahanahay intaana doorana control C ayaa leeyahay marka control C markoo dhaho kadib waxaa leeyahay qaybtan ii tag waraaqada ii dooro A4 kadib click iisi waa kana marka inta control V ku dheh marka control V noogu dheh waa kana inta noo imaaday
kadibna inta nagu aadi kadibna waxaa soo qabataa kan hadhaada inta ku aadamo ilaa hoos marka meel banaan kili ku dheh marka waxaa leedahay waxaa bixinaysid bixin marka tusaale oo kale company haddaad joogto companyga magaciisa projectiga meeshuu ku yaalayo xogtiisa dhammaystiran qofka waxa sameeyey qofka jakimay taariikhda la sameeyey taariikhda la jamay waxaanoo dhan aa wada buubuuxinay marka okay kadibna fail aa tagaysaa save aa leedahay save aasaa leedahay cafwan kadib meeshuu ku yaalo ku dhigmaa pdf hoos mujida lacala ana hadda pdf waaba ii dooran tahay haddii kuu doornayna oo ballayn kuu dooran tahay somehow ballayn inay kuu dooran tahay macquule ka bedel marka waxaa ka dhigtaa pdf okay magaca ku qoro magaca laal magaca rati kadib save na leh anaga magacaasa ku rabnaa save aa lehnaa okay intaas waa fahnaa rajeynaa marka waxaa hal mar tagaynaa meesha aan dhiganay okay meesha aan dhiganay marka waxaan soo dhiganay ballayn waa kana 20% aan ugu qanamo okay pdf hadaan klik siina waa ka marka xogta si pure mujidaad si kasta daa usoo dhaweys qurux ma wax kale kama qaaday waa ka mujida marka intaas in si fiican loo fahmo rajayna intaas waxaan joojin doonaa marka cashirkii inaan socday maanta insha Allah waxaa ka dhiman renderna si fiican ayaa mar dhaxdaas ugu soo hadlay insha Allah si toos ah xisada xigta waxaan toos u gali doonaa projectiga dabiiqa ahaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.